habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha abrilna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii qurba oon maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka soomaalida ee lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfad helaan sidaasna shaqooyin ku hela. barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah cabdalla macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka global net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga it-ga amaba teknolojiga macluumaadka bartaan, iyo fardowsa faarax warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jebisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay. labadiinuba soo dhowaada. waayahay cabdalla, haddaan adig kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka global net ku saabsan. maxamed, macadka global net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad, waxaana ku aasaasay magaalada london. waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulshooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london, baahida it-ga ee jirta. xilliga iyada ah runtii ma jirin dad soomaali ah oo badan oo it yaqaana ama ku shaqeeya. marka baahida anoo wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinkii aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan kasoo baxay iyo markaan shaqada helay ayaa waxay igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london. waan gartay. muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka amaba aan idhahda ay ka qalin jebisay? runtii tirakoob horta 100% oo sax ah runtii ma hayo, laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furan yahay hadda waa 17 sannadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer, ayna kasoo baxeen dadka london degan in badan oo ka mid ah. qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay kasoo qalin jebisay. waan gartay. haddaan u gudbo fardowsa oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jebisay. fardowsa, goormaad macadka ku biirtay, maxaadse ka baratay? asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. macalin cabdalla, macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii febraayo dhammaadkeedii. waxaana ka bartay alxamdulilah horta maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabahayna it-ga waxba kama garanaynin. maadooyinkan ka qaatay waxaa kamid ahaa a pluska, network pluska, CCNA ga iyo CCNA security-gaba iyo active directory Microsoft-ga. marka waxaa ku shaqeeyana waa waxa aan macalin cabdalla ka bartay alxamdulilah, khayr alaasiya. waan gartay. xageed u shaqaysa hadda? hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yidhaahdo Janus Henderson oo financial company ah oo maraykanka iyo ingiriiska isla leeyihiin. wuxuu ku leeyahay headquarter, wuxuu ku leeyahay london, xaafadaan aan ka shaqeeyo liverpool street. headquarter kalena wuxuu ku leeyahay denver. waxaa kaluu ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida asia iyo yurubta, australia. marka waa company aada u ballaaran oo financial investor ah alxamdulilah. marka hadda waxaan u sameeyaa, waxaan kamid ahay network network engineerada oo companiga u shaqeysaan kamid ahay aniga. waan gartay. marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa companiga? asaga haa. waan gartay. intii aadan ku biirin macadka, dareenkaad ka qabtay it-ga iyo wuxuu yahay, bal haddaad nala wadaagtid. wallahi runtii it-ga qof ma isdhihin weligay it-ga qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay. weliga waxaan is iray it-ga waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya, ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ay iga dhaadhacsanayd si ay dad badanba ka dhaadhacsanaayeenba. laakiin waxay u kalifay inaan wax iska bedelaan rabay. alxamdulilah iskuulka oo macalin cabdalla waa xaafadaan degan ku dhex yaalaa, marka igama wafoga, si kadisaan ugu tagay. marka alxamdulilah marka waxaa dhacday inaan ka helay casharka ugu horeeya aan dhigtay. waxaan is iray tan waa maasha allah wax fudud weeyaan, macalin cabdalla si wax
noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay oo noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo naga horreyso oo mustaqbal dheer ka gaartay markaan aragnay waxaana kale anaga laftigeena jacayl iyo hani inaan anaga laftigeena ku dadaalno inaan meel sare ka gaarno. waan gartay macalin cabdalla bal haddaad sanadii ugu horreeyey macadka markii la furay aad iiga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay. caqabadaha maxamed runtii way badnaayeen badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca soomaalida laftiisa waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay i t bartaan oo waxay aamisnaayeen inay tahay i t wax aad iyo aad u adag inay tahay wax i t iyaga aan ku habboonayn in i t uu yahay wax dadka ajaanibta aan loogu talagelin marka taa ayaa keenaysay inay qalbijab weyn uu ku yimaado. tan labaad caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof soomaali ah uu ka dhaadhicin karo i t taa lafteeda caqabad ayay ahayd sida qaar badan ay xuseen. caqabada kale waxay ahayd in dadka aniga laftaydii ay qalbijab ay igu sameynayeen oo ay lahaayeen macnaha shaqo fiican ayaad haysataa meel fiican ayaad ka gaartay way aad waktigaad ugu bixinaysaa inaad macalin iyo waxbarasho aad usoo jeesato. marka caqabadaha noocaas oo kale ayaa runtii bilowgii aan la kulmay laakiin wax walba waxay u baahan yihiin noloshu dhabar adeyg iyo dulqaad iyo adkaysi. caqabadaha runtii waa kasoo gudubnay falilahi alxamdu. maanta dadkii ka caqalin jibiya macadka ama iskuolka waxay ka shaqeeyaan hay-adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba. waan gartay 2002 waad bilowday wax faraca ma jira haddaan si kale ku weydiiyana shirkadaada dadkii u shaqaynayay ma bateen? xaqiiqatan london hal meel ayaan ku lahaan jirnay laakiin hadda waxaan ku leenahay waktiga hadda aan joogno 2 meelood meel saddexaad ayaa jirtay laakiin si ku meel gaar ayaan u hakiyey waana bilaabi doonaa. laakiin hadda waxaan deganahay xaafadda wajabal iyo xaafadda stonebridge ee magaalada london. ardada ka baxday iskuolkana haddaan wax ka taabto meelaha ay ka shaqeeyaan aad iyo aad ayay horumar weyn u sameeyeen. tusaale ahaan hadda maxamed kuu soo qaato qaar ka mida ayaa ka shaqeeya cabinet office oo ay ka mid tahay number 10 Downing Street, number 11 House of Parliament, home office-ka. qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan hay-adaha maxaa lahdaa sida OIC oo lamida UN-ta marka ay timaado wadamada muslimiinta. qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan maxaa lahdaa financial sector sida Goldman Sachs, JP Morgan. qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan shirkadaha kale ugu waaweyn sida bangiyada Barclays, HSBC. marka waxaan dhihi karaa NHS hadday noqoto counsilada macnaha waxaan dhihi karaa maanta magaalada London marka aad fiiriso macnaha hay-ad walba waxaa ka dhex muuqanaya wiilashii iyo gabdhihii ka qalin jebiyey maxadka globalnet oo ay ka mid tahay firdowsa hadda aad waraysigan qayb ka ah. marka taa aniga waxay ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan horumar intaa la eg ayna runtii ku tallaabsadaan guulo aad iyo aad u waaweyn. waana midda keentay inaan timekayga iyo waktigayga aan geliyo in aan u horo dadkayga Soomaaliyeed si iyaga ay horumar u sameeyaan ama ay gaaraan. waxaana xusid mudan shaqadaydii aan ka shaqaynayay oo aan runtii shaqo fiican aan haysta lacag fiican aan ka qaadanayay waxaan uga tegay waxay tahay oo aan uga sameeyay resignation inaan arrintan iyada xooga saaro oo aan soo saaro dad Soomaaliyeed oo macnaha cilmigan fahma ku shaqeeya meel fiican ka gaara. waan gartay waad mahadsan tahay. waayahay firdowsa ugu dambayntii haddaan ku weydiiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo. wallahi run ahaantii markaan IT-ga hadda aan saa u dhex galay oo aan fahmay waa horta horumar dheer oo sare waa laga gaari karaa. mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha allah tacaala meeshaan hadda joogay iyo hadday noqdo meel kale inaan ka shaqeeyo inaan aan meesha ugu sare aan ka gaaro. marka IT-gu waa sahlan yahay waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqaynteedaba aysan adkayn oo maxaa la dhahaa xushmo iyo aad kula kulmayso professional. marka qof walba gabdhaha weliba muslimiinta aad maxaa la loogu ixtiraama. marka aniga waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan meel sare gaaro hadda inkastoo aan weli aan bilaaw ahay aan weli ay arrintu ay aan ku fogaanin laakiin insha allahu tacaala waa rajadeedu way fiican tahay ilaah noo fududeeya. waan gartay aad baad umahadsan tahay. kuwaasi waxay kala hayaan cabdalla macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca technologiga macluumaadka maba IT-ga ee globalnet iyo firdowsa faarax warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jebisay macadkaasi. labadiinuba aad baad umahadsantihiin.
aad baa mahadsantaa maxamed. barnaamijkii qurbana intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo. barnaamijkii qurbe iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno